بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود مركو أركي قضب كسيديتان يتضبات فرقة كواد حرف كعاء هي فرقة اللباد الدستور ككميلجار كاه مركو أركي قضب كسجاشنات حرف كاء الدستور ككميلجار كاه مركو أركي قضب كسيديدات فرقة أفراد حير كلمبر لح إصابة حي لبيه طبانكي فبراير كون سجال بقولي ستيتنكي كنا ساب سنة إن قبل كبنادر يدولة هوسي أي هوسي مادان مدحتوية الجمهورية مركو أركي سوتشيدين توسارد أرمها جودها فدرالك يدوشيسين حكومة فدرالك الصومالية مركو أوجادي إن يشرتوا باهي الله قبل إلا مجعابه قدومية عصب قبل كبنادر أهنا دق مقالة مقدشو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود oo tixgelinaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa magacaabay mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waayo-aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horay xilkan u soo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimadda dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka Banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo dhamaantood hortabin u leh dawladda salna u ah aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho inuu eebba u fududeeyo mas'uuliyaddan culus isagoo ku adkeeyay dhammaan hay'adaha dawladda oo ay wada shaqayntu kala dhaxayso inay si dhow ula shaqeeyaan gudoonka cusub ee gobolka Banaadir xeerkan madaxweyne ee lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dhaqan galaya maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Sebtembar 2022 aad baad mahadsantihiin